kulanti wanaagsan saaxiibayaal war degdega xubnihii siyaasiyiinta mucaaradka ahaa oo hadda ka soo baxay shir jaraa'id oo xasaasiya ayaa ku dhawaaqay qodobo waaweyn iyagoo soo saara go'aano xasaasiya oo ka dhan ah dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh haddaba maxay sheegeen mucaaradkii oo aan midna ka harin oo maanta halkan ku hadlay iyaga oo caraysanna si weyn war u soo saaray haddaba natiijada ka soo baxday shirkii ay qabsadeen ayaa saaxiibayaal soo gudbinaynaa laakiin ugu horreyntii ka aragti dhiibo marka aad daawato shirkoodan jaraa'id iyo qodobada ay soo saareen aragtidaada noo reeb fariinta meel dheer gaarsii halkana ku soo biir si aad ula socoto xogaha degdega ah aynu ku bilownay saaxiibayaal goordhow waxaa shir xasaasiya ugu soo gabagaboobay hoteelka jaziira ee magaalada muqdisho xubnihii madasha samata bixinta ku haray ee uu hogaaminayo madaxweyne hore shariif sheekh axmed xubnahan ayaana shir ka duwan shirarkii hore oo ay halkan ku yeesheen go'aano waaweyn ka soo saaray haddaba waxaan saaxiibayaal idiin sii daynayaa qodobada ay soo saareen mucaaradku waxyaabaha ay ku baaqeen hanjabaadda ay u direen dowladda federaalka iyo sidoo kale guud ahaan wixii ay maanta ka hadleen warmartiyeedka madasha samata bixinta Soomaaliyeed August 2015 madasha samata bixinta Soomaaliyeed oo kulan labadii maalin soddonka iyo 31 bisha August ku yeeratay magaalada Muqdisho ayaa kaga arisantay xaaladda dalka iyo halista ay dowladdiska iyo dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed wajahayso waxaana ka soo baxay go'aanada soo socda madashu waxay ka walwalsan tahay ka jeedsiga dowladda ee dagaalka argagixisada duulaanka ku ah deegaano hore looga xoreeyay kaga mashquushay dastuurkii dalka oo la bedelo khilaafka doorashooyinka iyo ciidankii oo loo adeegsaday fulinta ajenda siyaasadeed iyo barakicinta shacabka danyarta ah madashu waxay ugu baaqaysaa dowladda inay u soo jeesato la dagaalanka argagixisada al-shabaab iyo daacish lana timaado qorshe istaraatiijiyad iyo abaabul hogaamineed oo lagu taageero in degdeg loo joojiyo barakicinta danyarta xaraashka suuqa madow ah ee dhulka danta guud iyo dhulfidsiga lagu duudsinayo xaqa milkiyadeed ee muwaadiniinta Soomaaliyeed in madaxweynuhu ka laabto wax ka beddelkii sharci darrada ahaa ee uu ku sameeyay dastuurkii la isku raacsanaa ee 2012 si dalka looga badbaadiyo qalalaase iyo dastuuro iska soo horjeeda si hubinti la'aan siyaasadeed looga badbaadiyo dalka in waqtiga yar ee ka harsan muddaxileedka baarlamaanka iyo madaxweynaha laga heshiiyo doorasho la hirgelin karo loo dhan yahay ka fiicantii 2022 heshiisna lagu yahay madashu waxay u aragtaa xeerka doorasho kan xisbi iyo guddiga doorashada ee uu madaxweynuhu samaystay inay yihiin shaati isaga ku jin ah sababta luqunta la iskugu suray doorashooyinka heer deegaan dowlad goboleed iyo federaalna ay tahay muddo kororsi madashu ma aqbali doonto muddaxileed dhaafsiisan doorashada madaxweynaha waqtiga loo asteeyay ee 15 May 2026 in dowlad goboleedyada uu muddaxileedkoodu mar hore dhammaaday si degdeg ah u qabtaan doorasho loo dhan yahay tartankeedu furan yahay heshiisna lagu yahay madashu waxay ka digaysaa halista ku gadaaman iyo natiijada ka dhalan karta doorashada qoriga iyo qafaalka ah ee uu maamulka madaxweyne xasan sheekh ka wado gobolka Banaadir iyadoo aan la ogeyn maqaamka caasimadda heshiisna lagu ahayn hanaanka sharciga iyo guddiga doorashada madashu waxay ka walaacsan tahay dhaawaca uu madaxweyne xasan sheekh u geystay midnimada dalka iyo wadajirka ummadda sumcadda iyo haybadda dowladnimada Soomaaliya
waxayna ugu baaqaysaa inuu ka waantoobo falalka guracan iyo ficilada kala geynta ah ee ay isaga iyo xukuumaddiisu ku howlan yihiin. 10 madashu waxay cambaaraynaysaa caburinta, cagajuglaynta iyo xarigga uu maamulka madaxweyne xasan sheikh kula kacayo dadweyne si nabdoon oo dastuuri ah u cabiraya aragtidooda sida nabadoon aadoole, waxayna dalbanaysaa in degdeg loo sii daayo. waxayna u aragtaa madashu warqadda ka soo baxday xeer ilaalinta mid baalmarsan una adeegaysa ajandaha kalitalisnimo ee madaxweynaha, taasoo looga hortegayo xorriyadda hadalka iyo ee shacabka gobolka Banaadir. 11 madashu waxay ciidamada qaranka uga digaysaa in loo adeegsado barakicinta danyarta iyo burburinta suuqyada ganacsiga, xarumaha caafimaadka iyo goobaha cibaadada iyagoo fulinaya dano shakhsi ah. ugu dambaystii 12 madashu waxay xil iska saaraysaa ilaalinta midnimada dadka iyo wadajirka dalka Soomaaliyeed iyadoo soo dhaweynaysa dadaal walba oo dalka looga badbaadinayo xasilooni darro siyaasadeed iyo firaaq dastuuri ah. waxayna ku baaqaysaa in si degdeg ah la isugu yimaado shir dalka lagu samata bixinayo oo ay qayb ka yihiin dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland. waa mahadsantihiin. ra'iisul wasaaraha, wasiirada, bahda saxaafadda, dadka Soomaaliyeed meel joogtiin, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. si faahfaahsan oo nagu akhriyay warburtiyeedka uma malaynayo hadda wax badan inaan ku soo kordhin karo, laakiin si kooban haddaan u dhaho shirkan wuxuu ku saabsanaay in la qiimeeyo xaaladda dalka, xag amni, xag siyaasadeed. waxaa soo baxday labadii maalmood oo shirka uu soo socday. kow, horta khatarta al-shabaab ama khatarta argagixisada inay soo kordhayso, dowladduna arrintaas sidii laba aysan ugu howlanayn. marka baaqa koowaad in dowladda loo diro inay u jeesato hawshii loo idmaday oo ahaaday difaaca dalka. waxaa la socotiin meelo badan oo laga xureeyay inay hadda dib ugu soo laabteen, meelo kalena ay qorsheynayaan inay ku soo laabtaan. dowladduna ay aad ugu mashquulsan tahay waxyaabihii looga digay sanad ka hor oo ay ahaaday beddelka dastuurka, samaysasho maxaan ku yidhaahdaa sharci doorasho, guddi doorasho aan loo dhammayn. aad la socotiin magaalada muqdisho inay ka socoto maxaan ku idhaahdaa dadkii dhaqdhaqaaqooda in la hor istaago, qofkii 2 mar 3 mar in suuragalta in la istaajiyo ayadoo la leeyahay isqor, ayadoo magaaladu aysan lahayn maqaamkii, ayadoo aysan lahayn sharcigii inay taas u dhacayso. sidaas oo kale waxaa la socotiin waqtiga hore inuu aad u yar yahay, aan lagu qaban karin waxa la sheegay oo isku saaran doorasho deegaan, doorasho maamul goboleed iyo doorashada federaalka aan lagu qaban karin. marka waxay u baahan tahay aragti hufan oo doorasho oo keeni karta ay ka wada qayb qaataan, heshiis lagu yahay, doorashada dalka uu ku galo waqtiga dhiman. marka madashu waxay hoosta ka xariiqaysaa inaan la ogolaa doonin muddo kororsi. la galo maamul goboleedyada dowladdu hor taagan tahay oo waqtigooda dhamaaday oo la cadaadinayana la fasaxo in la qabto dalka loo qabto. arrimahaas madashu sababta ay sidaas ugu aragto waxa waaye dalkan waxaa heshiis lagu yahay 4 sanaba inay doorasho dhacdo, korna loo qaado doorashadaas hufnaanteeda. nambarka kaliya ma aha, khaladaad badan ay leedahay, khaladaadkaas in laga saxo waqtigana la ilaaliyo. marka waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba inay ogaadaan horumarka iyo horusocodka geedi socodka nabaddu wuxuu ku jiraa dowladnimada doorasho hufan oo la qabto. bayse waxa waaye bariyahan waxaa aad u soo batay dacwooyinka ka imaanaya cadaadiska dadka shacabka ku imaanaya, gaar ahaan kuwa dhiban ama cabashadooda baahiya, handadaad qaarkood ay xiran yihiin sida hadda aad maqlayseen nabadoon xaadoole oo muddo xiran,
iyo kuwo kale oo xiran iyaga laftigooda marka waxyaabahaas inta ugu badan waxay ka dhasheen barakicinta bulshada oo aad maqlayseen runtii maalin dhawaad oo ka baaxad weyn intii aan maleynaynay oo waxa la xaraasha kaliya aysan ahayn dhulka dawladda ee la xaraasha dhulka dadka la qaadanayo marka arrimahaas runtii nasiib darro aan u aragnaa xilligan in dawladdu ay ku fikirto dhulkii dawladdan inay xaraashto aan loo meel dayin dhulkii dadka masaakiintana lagu darsado dadkiina aan loo helin hooy iyo meel ay galaan marka aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyntii daawada adiga sidee ayaad u aragtaa hadalladan ka soo baxay mucaaradka iyo go'aanada ay soo saareen aragtidaada noo reeb fariinta meel dheer gaarsiiya halkanna ku soo biir tan iyo kulankeena kala xiga nabadgelyo